بسم الله الرحمن الرحيم. شركة ديغان دور وشركة ugu horeysay oo noo timaado nadaafada shirkad kalena aan wali ma arag oo ayaga aan ahayn intaan meeshan joogay shirkadda markaan shaqada ay noo bilaabeen anaga awalka horeeto dad badan aan noo joogay xitaa dadkeenii ay shaqaalaysiiyeen nadaafadoodana waxay noqotay wax super ah oo aanan yaani hore u haysanin shaqaale kastoon haysanay yaani korjoogooda supervisorkooda wax yaani sida ay uga taxadirayeen meeshan aad iyo aad nadaafadeedu isku bedeshay 100% markii aan deegaan dhowr shaqada noo bilowday ilaa haddana waa nala joogan deegaan dhowr waa shirkadda anaga runtii haddaan ogaan lahayn hore u ogaan lahayn mar hore ama dhiinayn noo imaada isbitaalka waxyaalo badan ay ka qabtaan oo xitaa aan horey loo qaban jirin oo ahaa sida alaabta disinfectantiga ah oo maaragtay meelaha oo loo baahan yahay oo bukaanka inay ku nadiifiyaan oo aynan ahayn alaabta nadaafada guryaha caadiga ah ay keenaan runtii yani waxaan dhihi karaa shirkad mar alla markii aad u baahatidna diyaar ku oo taagan shaqadoodana 99% ka soo deegaan dhowr waa dad nidaamsan shirkad nidaamsan oo runtii yani wixii booqasho noogu yimaado xitaa ay ka dareemaan inuu meesha si gooni ay nadaafadeeda ay u sareyso markay qaarkood xitaa noo compare gareeyaan isbitaalada qaarkood ay dhahaan isbitaal hebel oon tagnay sidaa uma nadiifsana sidaa uma magaciisaysna meel bukaan jiifaba uma eka marka wax badan yani waxay sameeyeen shiftiyaal ilaa hameenkii 24 saac deegaan dhowr meeshan kama maqna annaga runtii shaqanagu oo aan yani si fiican ugu nasanay oo mataqaana aan uga helnay intii isbitaalkan jirana inay nala joogaan aan jecel lahay waa deegaan dhowr waa shirkad yani xil saartay oo maaragtay xil iska saartay inay dadka shaqada u haysa ay si fiican u gudato waana ka haynaa haddii ay awood aan leena ka badanna waxaan dhihi lahaynay xerada dhan noo nadiifiya marka isbitaalkayna qofkii yimid baa ka hadli kara hadda inta ay maqlaysana waxaan u malaynaa dad badan oo hadday dhegaystaan rumayn kara hadalkaygana waa jiraan oo dhowr jeer inta naloo yimid dad noo yimaadeen ay dhaheen deegaan dhowr yaa idin nadaafadiina waa fiicanta iyo deegaan dhowr anaga noo shaqaysta shirkad la yiraahdo marka aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa hadday jirto bilad sharaf waa siin lahayn waana siin doonaa insha Allah